السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالكسو دوادا جانالكا فندوح ميديا فضلا داود هذا نقو عصب تاي سبسكرايب سار جنبريل كنا فرو لايك شير كومنت تيغانا هاي لوبين ايان كل هاي كسو دوادا مقال عصب سيداد واد اوكتهين مالمي قدام بيي وحال هذا الهيي هنا اسفرين لابد يوتيوبر اما لابد لماني عانكا اي لغو مقعاب الرشك بوي يحفصا taas oo la sheegay in gabi ahaanba ay kala tageen warar kala duwan ayaa ka soo baxayay khilaafka ka dhashay ama u dhaxeeya labadaasi labaane ee mar dhowr jeer ka soo muuqan jiray baraha ay ku leeyihiin YouTube-ka gaar ahaan janalka Rashka Boy oo ah ninkii qabay Xafsa waxaa la sheegayaa in dhowr jeer la sheegay inay kala tageen Xafsa iyo Rashka inkastoo uu beeniyay Rashka Boy wararkaasi beenta ah uuna sheegay inuu jiro khilaaf u dhaxeeya isagii xaaskiisa balse meesha aysan oolin wax furiina hadda waxaa la soo warinayaa in Rashka Boy ugu dambeyn uu la heshiiyay xaaskiisa Xafsa iyadoo la sheegay in la soo afjaray gabi ahaanba khilaafkii ka dhaxeeyay Rashka Boy iyo Xafsa waxaa la sheegayaa in arrintan ay ka dambeeyeen xalinta khilaafkaas in la xaliyay ka dambeeyeen dad caan ah oo hadda qaarkood aan magacyadooda halkan aanan ka xusi karin sabab jira awood waxaa la sheegay in dadkaasi ay dhabarka u xirteen sidii ay u xalin lahaayeen khilaafka u dhaxeeya lamaanaha youtuberada ah ee Rashka Boy iyo Xafsa waxaan la sheegay gabi ahaanba khilaafkii meesha uu ka baxay